السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود حفيز كيسة waxaan kula suganahay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed sidoo kale waa mujaahid waliba afartii qof ee ugu horeeyay ee sanan baxay ka kaliya ee ka nool Maxamed Kaahin Axmed wasiirka oo aad wada garanaysaan waa gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga kulmiye wasiir telefishinka bulsho waa kaaga mahadnaqaya adigoo howlaha qaranka ku jira haddana inaad arinta taariikhiga ka aqbashanaad waraysi ka siiso ugu horreyn kusoo dhaw wasiir bulsho TV aad baad mahadsantahay aan isku hambalyeynaya bulsho TV ina barnaamijkan maanta wax ka sameynaysan wasiir si kooban warbixin nooga sii xaaladda guud ee dalka iyo halka wax maraya bismillaahir rahmaanir rahiim aad baan idinku mahadnaqaya bulsho TV guud ahaan xaaladda dalka Soomaaliland aad bay wanaagsan tahay xaaladka nabadgelyaduna aad bay wanaagsan tahay meelo muddo ay xoogaa shaqaaqihii ay ka socotay sida guud ahaan gobolka Sanaag degmada Ceel Afweyn waxaa la isla afkartay dhammaan dadkii deegaanka acyaantii deegaanka haday tahay salaadiinta boqorada cuqaasha waayeelka waxgaradka aqoon-yahanka siyaasiyiinta in arrintan nabadgelyo laga shaqeeyo lagu soo afjaro haddana waxay ku sugan yihiin deegaanka Ceel Afweyn waxana waxay baxayaan ilaa iyo Sanaag iyo Ceel Gaabo xukuumadda iyaguba gobolka Sanaag guud ahaan iyo gaar ahaan gaarka ah Ceel Afweyn iyo degmada inta Ceel Gaabo waa la isla afkartay guud ahaan aad buu wanaagsan yahay xilli roobaadku aad buu fiican yahay si fiican baa howlaha nabadgelyadana looga shaqeynay wasiir hadda inta kaga nimaadna xaaladda guud ee dalka bal waxaad nooga wartaa taariikhda ay leedahay 21 Oktoobar ku leedahay shacabka Soomaaliland sidoo uu dhacay inqilaabkii uu Siyaad Barre sameeyay wixii ka dambeeyay iyo hadda Soomaaliland halka taagan sida laga wada warqabo taariikhda dadka Soomaaliyeedna ay cadeynayso waxaanu la soconaa dadka Soomaalida ah hadday tahay reer Somaliland iyo hadday tahay reer Soomaaliya labadaba inay ka mid ahaayeen mustacmarooyinkii reer Yurub ee qaaradda Afrika ilaa 1884 gumaysigu joogay waxayna ka mid ahaayeen dadkii Afrikaanka ahaa dowladihii Afrika sanadii loo bixiyay sanadka Afrika 17 dowladood ay xoroobeen inkastoo qaar kontonaadkii bartamaheedii dabayaaqadeedii xoroobay ay jireen ay ka mid ahaayeen Soomaaliya iyo Somaliland labadaba haddii maabka halkaas oo dhan aad dib u eegtaan ama hadhowtaad aragtaan waa maabkii maxmiyadii Ingiriiska Somaliland maaha mid imika intii Somaliland xorriyadeeda ay dib ula soo noqotay la sameeyay dowladahaas ka mid ahaayeen Somaliland baa horeysay 26 Juun bay xorriyadda qaadatay Soomaaliya ku xigtay oo maxaan ku dhahday 1 July qaadatay isla 1 July wixii loo bixiyay midnimada anoon karna way dhicisowday ayaa la isugu tagay sideedaba fikirka ahaa in Soomaaliya midowdo shanta Soomaaliyeed midowdo waxa lahaa siyaasiyiintii iyo dadweynihii iyo shucuubtii reer Somaliland cid kale ma ilaaqeen dadka shaqeynaya way jiraan Somaliland iyada markaa ahayd hal abuurkii in ay Soomaaliya iyo Somaliland ay midowdo dowladda xora dhashay dowladda la doortay baa dhashay dastuurka qaranku leeyahay baa jiray inkastoo dastuurka markii loo codeynayay Soomaaliya dastuurkeedii boqolkiiba 70 ku dhow ay reer Somaliland diideen haddana wuxuu ahaa dastuur hirgalay baa 60kii waxaa la doortay baarlamaan 64kii waxaa la doortay baarlamaan 69kii waxaa la doortay baarlamaan madaxweynihii ugu horeeyay aadan Cabdulla Cusmaan madaxweynihii ku xigay wuxuu ahaa Cabdirashiid Cali Sharmaarke ilaahay labadaba ha naxariisto saddex ra'iisul wasaare iska soo bedelay Cabdirashiid Cali Sharmaarke Cabdirasaaq Xaaji Xuseen
maxamed ibraahim cigaal intaba marxuumin ilaahay ha u naxariisto inkasta oo yididiile xumo dowladeed ay jirtay inkasta oo la tilmaamayay in musuqmaasuq baahani dowladaha shicibkee lasoo doortay ay jireen haddana dee dowlad ummadii soo dooratay baa dalka maamulaysa oo dastuuri ah oo dimuqraadi ah inkastoo uu jiray baaxadeg siyaasi ah oo murugiisa leh xagga doorashooyinka kale xagga siyaasadda kale xagga dhaqaalaha kale haddana dowladda dimuqraadi ah oo xorriyatul qowl jiro oo saxaafad madax bannaani jirto ayaa maxaanku idhahdaayay jiray waqtigaa jiray lama odhan karayo way dhaliil la-an yihiin somaliland imika waa kan wasiiral khaarijiyihii maraykanka dadka qaarba waxay moodaan in somaliland iyo howlahan somaliland iyo xorriyaddeedu iyo muran ku jiro waa kaa wasiiral khaarijiyihii maraykanka hambalyeynaya balyadii 26 juun 1960 uu u soo diray golihii wasiirada ee markaa dowladii somaliland laga sameeyey markii somaliland xornimada qaadatay uu soo hambaliyay 20 juun 1960 ayuu wasiir khaarijiyihii maraykanku uu soo diray maxaanku dhahdaayay ambalada Christian Herter arrimahaas iyagoo jira oo dad laga yaabo in laga bogsan kari lahaa ama la toosin kari lahaa haddii wax dhaliilihii ka jireen maxaanku dhahdaayay dowladii Soomaaliyeed ee markaa jirtay ayaa inqilaabkaasi dhacay 21 Oktoobar maalin taariikh leh oo ummadda Soomaaliyeed taariikh ay ku xusta leh maaha markaa maxay noqon weyday Soomaad garan maalin maxaanku dhahdaayay ummadda Soomaaliyeed horumar iyo barako iyo maxaanku dhahdaayay nabadgelyo u horseedayna maaha waa maalintii asaaska u ahayd dadka Soomaaliyeed sidanay u kala tageen inay u kala tagaan waa maalin siyaasadihii dalka lagu hogaaminayay ay maxaanku dhahdaayay ay horseedaan in madaqadan aynu ku noolahay aynu cadaawad rasmi ah ay ka jirto Soomaaliya iyo Kenya Soomaaliya iyo maxaanku dhahdaayay Ethiopia Soomaaliya iyo Djibouti way jirtaa colaad muddo dheer baa maxaanku dhahdaayay soo jirtay dalalkan aynu jaarka nahay khilaaf xadeed baa jiray isticmaalkii oo kala qaybin fara badan sameeyay baa jiray laakiin haddana markaad aragto siyaalihii loo sameeyay dowladaha Afrika ilaa iyo maxaanku dhahdaayay bartamaha Afrika ama galbeedka in ku dhow ilaa Kenya af Soomaali ku hadla afku hadda jeer ma noqdo cidda waxa xadida ummadda isku qoomiyada meel ka soo wada jeeda intaasoo imise dowladeed oo carbeed baa jira oo kala madax banaan haddana isku af iyo diin iyo isku dhaqan afa oo isku diin ah oo isku midaba imise dowladeed baa Afrika Ingiriiska ku hadla ilaa waqooyiga Afrika hal aqooyiga qaaradda Mareykan ee Kanadiya Mareykan ilaa iyo Australia New Zealand iyo Ingiriisku intaba gumeystay afkiisa ilaa iyo inta fidiyay ilaa intaas af Ingiriis bay ku wada hadashaa Kenya marka laga bilaabo ilaa iyo bartamaha Afrika ama galbeedka af Soomaali baa lagu wada hadlaa inkastoo dhaawacyada siyaasiga oo qaaradda Afrika jiray ay jireen haddana dadku waxa uu maxaanku dhahdaayay uu dirmistay xaqiiqadii rasmiga ah ee jirtay in dalal kale yahay iyadoo dad Soomaaliyeed ku nool yihiin FD oo Ethiopia ku nool yihiin Djibouti ku nool yihiin oo Soomaaliya ku nool yihiin Somaliland ku nool yihiin baa la wada noolaan karaa maanta waynu wada noolahay tan wada noolashada ku soo noqono 21 Oktoobar markuu dhacay muxuu siyaad bare sameeyay dadka 21 Oktoobar markii inqilaabku dhacay
waxa la burburiyey oo la joojiyey oo la mamnuucay oo xaaraan laga dhigay distoonkii qaranka lagu maamulayay iyo shuruucdiisii ka dheegmaysay ayaa la laalay lama laalina waa la baabi'iyey waxa la burburiyey maxaan ku dhahday wax adlaaliya wixii dhammaan axsaabtii siyaasiga ahayd ee dalka ka jirtana waa la baabi'iyey waxa la baabi'iyey xorriyatul qowlkii saxaafad madax bannaan inaanu jirin qofku inaanu fikirkiisa siyaasiga ka hadli karin qofku inaanu iscabiri karin waxa la baabi'iyey inaan kulamo la isugu iman karin kulan dadweyne inaan kulamo la isugu iman karin waxa la xidhay dhammaan siyaasiyiintii iyo madaxdii sare ee xukuumadda ayaa guddigood la wada xidhay waqtigaa joogay rayidka ahaa baarlamaankii wasiiradii maxaan ku dhahday maamulkii sare ee maxaan ku dhahday dowladda la xidhay muddo yarba haddii ay jirtay asaladeedii ayaa soo baxay ujeedadeedii kaladii talisnimadeedii samaad garan waxa markii ugu horreysayba la sameeyey waa ti la dilay xubnihii SRC-da ka midka ahnaa ee uga cadcaddaa waa ti la dilay iyo rag kale oo maxaan ku dhahday la socda oo ka mid yahay generaal caynaanshe maxamed caynaanshe guuleed wuu ka mid yahay salaad gabaane wuu ka mid yahay ninan SRC-da marka ahayn cabdirasaaq dheel raggaasaa markiiba la laayay waxaa ku xigtay dalkii wadaadada culamadii caanka ahayd ee uu hogaaminayay sheekhii reer somaliland inuu walaaleeye ayaa maxaan ku dhahday ku xigtay iyo boqolsoon iyo raggaas ku jiray ay ku jireen baa ku jiray waxaa ku jiray in markiiba laga saaro laga eriyo maxaan ku dhahday nidaamkii iyo sistamkii dowladda dhammaan raggii dhiijiyada iyo barasaabada iyo madaxda sare ka ahnaa dowladdii soomaaliya ayaa ka mid ahaa misal waxaa ka mid ahaa cismaan axmed baa ka mid ahaa cismaan indhoole waa ninkii ahaa barasaabkii u horreeyey ee bedelay barasaabkii dowladdii ingiriiska ee somaliland barasaabka gumaysanayay barasaabkaa qudhaa joogay waa ninkii bedelay xorriyaddan barasaabka ay ka saxeexay inuu ka tegay dalka oo somaliland xorriyad qaadatay intaasoo meelood safiir ka soo noqday intaasoo jeer dhiiji ahnaa dee maxaan ku dhahday waxaa ka mida sheekh yuusuf sheekh cali sheekh madariya baa ka mida raggii ugu horreeyeyna cigaaliyaa isku kalaasada ahnaayeen ee maraykan iyo maxaan ku dhahday ingiriiska iyo suudaan waxa kusoo bartay maxamuud axmed cali ka bedelay maxaan ku dhahday waxbarashada somaliland ayaa ka mid ahnaa dabad halkaa waxaa ka bilaabmay asaladeedii cadaadiskii ganacsigii in laysu diido in qof walba la dilo in qof walba la baabi'iyo ayaa markaa bilaabmay taasaa markaa keentay in halgamadii ay ka bilaabmaan lagaga soo horjeesanayey taliskaa lagaga soo horjeesanayey waxaa ka dhacay maxaan ku dhahday cadaadis lama odhan karo boobna lama odhan karo laakiin waxaa dhacay in qof waliba uu isagu awood yeesho uu waxna ku dilo waxna ku dhaco waxna ku boobo dowladnimada waad ka baxday xabaalaha marka durdara imika cadaynaya dee gabiili wixii ka dhacay baa cadaynaya berbere wixii ka dhacay baa cadaynaya ceerigaabo wixii ka dhacay baa cadaynaya burco wixii ka dhacay baa cadaynaya iyo magaalooyin kaloo fara badanoo maxaan ku dhahday dalka marka waxa weeye maamulka dowladeed wuu leexan karaa kaladii talis wuu abuurmi karaa laakiin waxa weeye in maxaan ku idhaahdayey awooddii dowladnimo uu
uu qof waliba intuu raba gacanta ku sito ilaa in qof la dilo ilaa qof in hantidiisa la dhaco ilaa qof waliba min askari min generaal min agaasime min wasiir min baytooni iyo nin waliba awood yeeshay jasiiro wixii ka dhacay yaa fulinayay jasiiro wixii ka dhacay saraakiil baa fulinaysay hoose oo awoodda intaa leeg iyagu yeelanayay inkastoo markaa cid waliba aanay awood yeelanaynin ee cid gaara ayaa awoodaha yeelanayay marka ciddaas ma reernimay ku yeelanaysay sawirkaa way leedahay laakiin cid fara badanoo maxamed siyaad barre la reer ahayn oo laakiin dadkii min almuqarabiintii kacaanka ku dhawaaya beenmasheegayaasha ah ayaa iyaga laftoodu maxaanku dhahdaye ayaa samaynayay marar baanu reerba ahayn uu noqonaya maxaanku dhahday kacaanka iyo ehelkiisii dowladda iyo ehelkeedii madaxweynaha iyo intii ku dhadhaweyn marka taasaa waxaa keentay inuu qof waliba naco maxaanku dhahdaye nidaamkii dowladeed taasaa keentay qaxoontigan faraha badan le imika dabadaha jooga inay maxaanku dhahdaye tagaan taasaa keentay in khatar nabadgelyo iyo qof waliba uu maxaanku dhahdaye naftiisii uu u boqo taasaa keentay qof waliba siduu u noolaado inuu rag u shaqeeyo wuxuu shaqaystay rag siiyo si u helo maxaanku dhahdaye siduu nabadgelyo u helo runtii dee waa ay jirtaa colaadan muddada dheer aynu soo dhaxalay ee dalalkan aynu jaarka nahay 50 milyan baa la saadaalin ayaa lagu qiyaasaya dadkii dagaalkii labaad ee adduunka ku dhintay yurub oo dhan baa isuda dishay dagaalkii koobaad ee adduunka dagaalkii labaad ee adduunka khasaaraha iyo burburka intaa leeg baa yimi haddana maanta waxaad arkaysaa waxa qudhee shaqeeya waa siyaasadda la yidhahdo European Union midowga Yurub siyaasadda qudhee shaqeysa waxa weeye waa NATO macal Maraykan iyo dowladaha reer galbeedka iyo Canada iyo gidigood ay ku wada jiraan xulafada NATO taasi waxay keenaysaa dad kastoo isku mandaqad ku nool inay isu xulufaystaan nabadgelyada horumarka wada noolaasha waddanahooda u midoobaan marka maalintaas suugaan fara badan baa laga tiriyey nacay fara badan baa laga muujiyey taariikh fara badan baa maxaanku dhahdaye laga qoray muddo dhawatay imika oo isla sanadkan gudihiisa aan fogeyn waxa telefishinada Somaliland qaranku ay wareysanayaan dhalinyaradii ufo dhalinyaro wada jaamiciina jaamacada caana adduunyada ka soo wada baxay tirada dadka jaamiciintii xilligaa marka ayba yar yihiin aqoon fara badan oo qaran leh aqoon horumar keeni karaysa ayaa waxa lagu xidhay oo dil loogu xukumay oo xabsigii adkaaya 20 jir ay ugu jireen maxaanku dhahdaye Hargeysa cusbitaalkeedii baa ka shaqeysa siyaasad baa ku jirta dowladda ka soo horjeeda maxay ku jiraan oo dhalinyarada inta la leegay marka asaas bay u tahay oo salbay u tahay mashaakilka maanta xamar ka jooga iyo Somaliland xorriyadeedii inay dib ugala soo noqoto asaas bay u tahay maalintan madowga la yiraahdo 21 Oktoobar maalin taariikh ay ummadda ku xasuusato oo wanaagsan male maalin ummaddu hiilow ay ugu hiilowdo waxay ummadda Soomaaliyeed ku wanaajisana male marka arintaas dhacday wasiirad barasidaa sameeyay aad waxaad ku jirtay mujaahidiinta sanad waliba kuwii ugu waaweynaa ama ugu horeeyay Allaahumma salli ala bilaabay jabhadeynta sidee ku bilaamatay maxaad la qaadateen sanam sidee ku bilaamatay saa dagaal ku gasheen horta siro kooban de uma soo koobmi karto laakiin haddii aan isku dayo inaan soo koobo waayaha Soomaaliya ka soo jiray
nidaamka dowladnimo ee ummadii maxaan ku dhahdaa dhibta ku noqday keenay ayay ka soo jeedaan in la sameeyo SNM dabadeedna raggii dowladdu ay ka baxay ama dowladda laga eriyay reer Somaliland iyo rag kale inta Soomaaliyeedba muddo ayaa la waday in Somaliland in la aasaaso halgan ka soo horjeeda nidaamkan nacabka ah arrintaasi muddo dowra bay socotay oo gudaha iyo dabadaba si qarsoodi wax la isaga weydiinayo marka dadkii qurbaha joogay dabadda joogay ay ugu badan yihiin dalalkan khaliijka ee Saudi Arabia iyo Emirateska qurba joogay qoladii maxaan ku dhahday Ingiriiska Mareykan oo marka khaliijku marka xoog yahay oo ragga xoogiis dowladii 75 baa maalin qura la diray la eriyay reer Somaliland magacadoodii soo helaysaan hebel ragga imika aan tiriyay ka mid yihiin raggaasi dabadeedna dalka way ka wada baxeen siyaasiyiintii markaa inqilaabka ku jirtay ee dowladii markii inqilaabkan dhacay iyo siyaasiyiintii kale ee dowladda markaa ku biirtay Ismaaciil Cali Bakar ka mid yahay Umar Arti maxaan ku dhahday ka mid yahay Axmed Siilaanya ka mid yahay Ibraahim Miiga ka mid yahay raggaas iyo rag kale oo fara badan ayaa markaa gudahana ka shaqeynayay dhowr qolo iyo saraakiisha ciidamada iyo aqoon-yahankii ragga u fiyarka la xidhay oo qolada oo la xidhay Salabaan Nuux baa ka mid ah Faarax Xuseen baa nabada engineer baa ka mid ah Professor Cabdi Dusa ka mid ah Maxamed Cabdi doctor ka mid ah iyo rag kale fara badan dabadan marka waa la is urursaday afkaarahaas muddo dowr la is weydaarinay aakhirkii waxa la isla gartay in la sameeyo ururkii la sameeyay wuxuu noqday SNM waxa la asaasay marka 6 Juun 1981 marka gudahana waa laga taageersanaa qaabkaasi u socotay dabadna aakhirkii waxay noqotay in madaxdii halgankaasi dabadda ka asaastay iyo dadkii gudaha joogay inay isku xidhmaan oo dabadeedna la raadiyo meel laga soo halgamo meesha qudha banaanad markaa in laga soo halgamo oo dalka Itoobiya jabhada kale markaaba joogay oo kasii horeeyay oo ilaa dabayaaqadii 70-aadkii 78 asaasmay sida SSDF oo kale dabadeedna saasa Itoobiya lagu tagay saasay saraakiisha ugu horeysay ay maxaan ku raacday ku baxday halgankiina saasa lagu soo sameeyay wasiir adigu gabagabadii inkastoo isku sii dhownahay 4 qof oo ugu baxay baa la raacday ugu horeeyay bixitaankiina sidoo ahaa bixitaan la isqorsheeyay baa oo marka afartayda soo qoran maahan Maxamed Cali basna kamid ah dadkii baxay isagoo marka ciidan shabaab Soomaali galbeed ka tirsan marka jabhadaad bilowdeen waxaad ka dhex baxdeen dadka miya ma kama bixinay marka anagu saraakiil dalka joogta baa noo marka in qaabada loo ayaa la qorsheeyay in loo baxo in marka afartayadii hore markaanu baxnay Maxamed Cali naga sii horeeyay afartii nagu xigay barna waa la xidhay barna way ka soo baxeen Musabixi waa la xidhay aadan xaan samakaab waa la xidhay laakiin Muuse Nadiif iyo aadan Salaamaan iyo aadan Muuse Jibriil xoogaa bay naga dambeeyeen oo iyaguna awood bay soo heleen in soo baxo marka bixista hore rag la qorsheeyay tabaneeyaa 8 qof ayaa loogu talagalay afartii hore markay baxeen intii dambe dabadeedna culays baa yimi wax la xidhay dabadeedna kala hakad baa yimi adigu markii dambe markaa aan baabaxa iyo soo bixiddu waxay ahayd qof waliba sidii uu challenge u helo ama u qorsheysto inuu ku soo baxo
marka hawshani way socotay way abaabulayd gudaha xidhiidh wanaagsan bay ku lahayd waxaan ku dhahday saraakiishu xidhiidh bay lahaayeen siyaasiyiinta qaab bay wada xidhiidhayeen qoladan aqoon-yahanka aan kasoo sheekeeyey iyaguna xidhiidh bay lahaayeen saasay markaa ku yimaadeen iyagoo raabo ah in lagu soo baxo qolada muqdisho hadda joogta federaalka muqdisho fadhida iyadoo waxaasoo dhibaa somalilan ay gaadho somalilan go-aansatay madax banaan awal haysatay wasiir inay markale la soo laabato ilaa hadda waxay fargelin ku hayaan ay ku sameeyaan gudaha somalilan iyo hadday noqoto siyaasadda arrimaha dibadda somalilan iyadoo ay sidaa tahay waa maxaad fariintaad adiga maxamed kaahinada duraysaa ninkan daymanka halkan ka hadlaya sawirkan tusaaya ee odhanaya somalilan dee xorriyad buuxda bay heshay dhowr iyo 30 dowladoodna way aqoonsadeen 26 jan markaynu xorownay shanta superpower inta veto gale dowladooda veto gale baa ka mid ah bini aadmigu haddii uu taariikhdii dhacday diidana waxa uu ku socdaa waa khayaali iyo beenbeen bal marka ugu horeysa qoladani arrinta inoo dhaxaysa farqiga inoo dhaxeeya waxa weeye waan ognahay somaliland ma aqoonsano arrintaa kula yaabi mayno laakiin waxa ayaan darada nasiib darada ah ee shicibka somaliland ku ah colaada gaarka ah waxa weeye inay taariikhdii ummadda somaliland firsan yihiin inay maxamed gooni ahayd laba mustacmaradood inaynu kala ahayn inay xorriyad gaara heleen inay iyaga uga horeeyeen inay jacaylkii maxaanku dhahday shuruudihii midnimada lagu galay waxaa ka mid a markii waftigii ugu horeeyey uu tegey xamar tegey xamar wafdi may soo dirino halka may keenin waftigii ugu horeeyey marka uu tegey muuse rabiilo yaa la raxmay yuusuf xajaadan ragaas ay ka mid ka haayeen iyo rag kaloo fara badan ay xamar tageen waxaa lagu yidhi haddaynu doonayno inaynu midowno waxaynu ku midaynaynaa shuruudda kow hal madaxweyne oo intaa hal ra-iisul wasaare oo intaa oo koonfura wasiir kan ya marka intiiba waa la aqbalay soomaali jacayl bay ahayd iyaga imika soomaali jacayl farmaajo iyo raggiisa ka filimayne laakiin waxa weeye hagardaamooyinka iyo cadaawad abuurka ummadda somaliland inay iska daayeen somaliland imika waxaanu uma jeedo waxaynu leenahay oo bulshada caalamka u cadaynay waxaanu doonaynaa in aanu annaka iyo soomaaliya wada hadal nabadgelyo wada yeelano wada xidhiidhno wada hadallo ayaynu bulshada caalamka u cadaynay haddii maanta madaxweyne muuse bixi joogo haddii uu sharifta axmed siilaaye joogay haddii turkiyada kasii horeysay madaxweyne daahir riyaala joogay haddii uu maxamed ibraahim kigaal joogay haddii uu cabdiraxmaan axmed cali joogay ilaahay intii naxariisad dhibateena madaxweynayaasheenii ha u naxariista cabdiraxmaan axmed cali iyo maxamed ibraahim kigaal taas halkan markii dowladdii ugu horeeyey cabdiraxmaan axmed cali madaxweynaha uu ka ahmaa ina wafdi baa halkan laga diray oo loo diray soomaaliya warabal anaguna xaaladayda waa sidaas warbalnimayaho maxaynu istari karnaa maxaynu ka wada hadli karnaa maxaynu wada yeelan karnaa maxaynu kala yeelan karnaa salebaan maxamuud aadan baa ka mid ismaaciil buubaa baa ka mid ah ismaan jaamac baa ka mid ah cabdiraxmaan oo cali faarax madaxweyne ku-xigeenkii labaad baa ka mid ah waftigaasi markay soo noqdeen ee golihii dowladda ka warrameen waxay idhaahdeen nimankaynu tagnay lahayn walaalaheen aynu tagno waxay noola hadlayeenuun sidii aanu ka mid nahay gobol ka mida gobolada soomaaliya jawhar oo kale iyo gaalkacyo iyo baydhabo iyo inaanu la mid nahay bay noola hadlayeen marka horta waxa weeye dee xaqiiqaduna way iska keen hor iman doontaa bishuna horteenay ka bilan doontaaye somaliland colaadina kuma jirto soomaaliyana waxaanu ma rajeynayno ilaahay dhibkaynu ka kor qaadana waynu u rajeynaynaa wadahadalkeedana meel fiican baynu dhignay halka ay iyagu ku wadaan way iska tegi doontaaye ee colaada ah ee nacaybka ah waa ka warhaynaa imika dowladahan aynu jaarka nahay oo dhan warqaday safaaradoodu qaybisay oo ay leeyihiin dadka reer somaliland fiise ma siin kartaa
وإلى الشعب كبا العداوة السنة كرهير سومالي لأن في سياشة ويحلان دولتها النوي كهلان دولتها يورمنا ويكهلان أيجنا إمك عدي دولة ما تقنوا عدي ما دقيسته لكن وحويه كل شو ده وح كشرة uurkooda waxa ku jira ay soo mantagayaan dabadeedna waxa wada noqonaysa arin Soomaaliland iyo shicibkeeda cadawadaysanaya marka iyaga waxaan leenahay saaxiibayaan farmaajo aduguna taariikh hore burburtay ma soo celin kartid watii Soomaalida haligtay Soomaaliya iyo Somaliland wuxuuna aasaasi ka dad wanaagsan oo walaalo oo wada nool oo wada shaqaysta sida adduunyadu isu dhaxmartay isu dhaxmara oo cilaaqaadkan adduunyadu wada leedahay wada yeeshan oo nabadgelyo wada yeeshan ayaan baahanaa waxaan uga fiicnaan lahayd iyaga intay Somaliland ku fogaan yihiin inay maxaan ku dhahdayay daryeelka iyo waxtarka iyo isu socodka gobolada Soomaaliya ay ka shaqeeyeen maxaa ka dhacay Kismaayo ka dhacay وهلاك بكدعي سياسة كدعي محاهد إن دليل بيها يا مدحونا ياشي محن كود هذا فدرال كأيجوا أي سماستين أي لود دليل كسماي متى كرتان طيارة دي بالك كسماي متى كرتان إنديه سوشنا بالله ودتجي إنديه سوشنا بالله الدنيا دور اللي جوا تجيمي واتيل لأورنج رح الجسم متى كرتان وحيلا أنت دبعت هذا لو حكم بتقف عن دلور دلانين ودم بكسمة دلوا لقى مستعفرية وللتاريخ ده لما هي قفطلوا ده شيء دل كيس لقى مستعفرية هرجسي ولا سكم مستعفرين شري حاجة اللي سكم مستعفرين هي حمر بالله سكم مستعفرين برع عرقابه Somaliland ولا لقى مستعفرين شري ده بدنا نحلون شري كبحلك مستعفر ووحياله أيام تردي عرب تركي دولة دي محن كل هذا انقلابك كلا دي تلسكا maamulka Puntland Soomaaliya iminka ugu dambeysay wuxuu lahaa degmada magaalada Bohol ayaan ka sameynay dawladaha soo horna baran buudi waa maxay fariinta aad u diraysaa adiga xukuumadda horta waa dhabo maxaan ku raadayay waxaanu ka jaarnahay maamul goboleedka Puntland Somaliland ilaa yablugu waxay aaminsanayeen ay in nabadgelyo lagu noolaado daandaansi colaadeedna mar walba u jira inkasta oo imika iyaga laftoodu ay leeyihiin nabadgelyadii diyaar baanu nahay laakiin rag aan nabadgelyada diyaar u ahayn ay jiraan arrimaha fadqalaaleyntana ay badayaaba yihiin ragga laga soo diro xamar Somalilandna aad iyo aad bay gacanta uga haysaa bandaqada sidii aanu dagaal uga qarxeen laakiin rabba sita bamba bilaabinaho mar walba qarxayso aakhirka iyaga ku qarxi doonta fariintan u dareena waxa weeye wax inoo dhaama inaynu nabadgelyo ku wada noolaanaa ma jirto wax inoo dhaama ma jirto inaanay dad colaad inagaga dhimanin ay dadkeenu nabadgelyo inoogu noolaadaan adduunyadu imika halkaa waa laga tagay waa la kala ganacsanaya ganacsiga adduunkaas dhex maraya dalxiiskaas dhex maraya wada shaqayntii maxaan ku dhahday kala baac mushtariinta is dhex maraysa fariinta kale aan u dareeyo waxa weeye culaadu ma baahnina nabadgelyo baahnaay wixii khilaafaad dhexdeena jirana wayna ka wada hadlaynaa Somaliland faragelinta ka daaya waynu arki jirnay ilaa 19 rag degmooyinka Somaliland ka tirsan u dhashay ayaa maxaan ku dhahday ayaa imanaya meelaha marmarsiyaha waxay ka dhigtaan waa isir qabiil hadii dawladda Soomaaliyeed lagu dhisayo saacadeena joogana farmaajo xamar madaxweyne kama noqdo because deegaanu ma cid kale deegaanu ma Soomaalida waxaynu ka tirtireynaa qoobada yaryar oo qabiil inaan noqonin Somaliland inaynu saadaris waxno Soomaalida Kenya joogta Soomaalida dawladda deegaanka maxaan ku dhahday federaalka Soomaaliya Soomaalida dawladda Djibouti maxaan ku dhahday kamidka inaynu cilaaqaadna wada yeelano wada shaqayn wanaagsan yeelano iskana kaashano ayanu dareennaa marka waxaan leenahay nabadgelyada aynu ku wada dadaalo waxaa wasiir Maxamed Kaahin Axmed waa wasiir
ka awooda badan wasiirada kale wasiir adiga taas ma ku muuqataa anigu waxaan ka mid ahay waxaan ahay wasiir ka mid ah wasiirada dowladda wasiirada dowladuna mid waliba wuxuu leeyahay mas-uuliyad dastuuriyaho wasaaradeed oo xeer dhan oo wasiirada ka mid ah baa jira waa marmarsiyo yaroo qolada macaaridka iyo dad kale ka mid yihiin aniguna ma yihiin mana noqonayo wasiir wasiirada ka mid ah intaas daawadayaal waxaan ku soo afmeerinaa waraysiga uu telefishinka bulsho siinayay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga talada dalka haya kulmiye wasiir waad ku mahadsantahay waraysiga aad siisay telefishinka bulsho aad u mahadsantahay